بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا ونكسن داود يالي إذا لهانتين بميل كستو الدنيا كجوبتان كنسو دوادا برنامج كتلادي وتلوذات وعاد مالين والبو تلادا كداوان يسان جنال كقري جقود وحانا سي وذا جيرا إن كل سعودسين دونا أنغو كلاعان نستيح أيام دور هي فيصل بشار أريقو ما سند مستوحي اسبوعي هورو waxaa jirtay qisooyin la soo wadaageen daawadayaasha ku xiran barnaamijkan kuwaas oo u baahnaa in la taliyo haddii aan ku bilaawno talooyinkii ay soo jeedisteen oo maanta dadka daawadayaasha barnaamijkan ku xirnaa talooyin ay u soo jeediyeen waxaana jeclaan lahaa inay qaataan talooyinka ayaga ah haddii aan ku bilaabo qardaas ugu horeyso gacantayda ku jirto taladaanayda yarkan magaciisa waxa uu ku bilaabayaa Mahad Axmed waxa uu leeyahay waxaan kula talin lahaa wiilkaasi inuu samir muujiyo kuna dadaalo jaceelkiisa sameeyana sidii ku soo jiidan lahaa mahadsanid bahda qari joqod ayuu leeyahay ومهدسن يهي هدي أنا قدن كي عن فالعلنتي لقسوا بحيي برامجك عن كبلاوة فاطمة عبدي وحي أسوا فالعلي سي مقدس أبايا وحن كلها تلين لها مركة هراء إنا إلهي اسكو حرته وآد بريدد مركة حكتنا آد ويل كاغير آد كرستيد وآد نين إيا باب كيس بكب حديد waxaana kula talin lahaa wiilkii hore oo jaceelka ku soo bandhigtay inaad mudnaanta siisid saas ayay ugu soo falcelisay Faadimo Cabdi Faadimo waad mahadsan tahay sida aad fiican oo aad ugu soo bandhigtay talada Maqdis waxaana rajayn doonaa Maqdis inay ku qanci doonto jawaabtaada oo talada iyada qaadan doonto ما تني نستاحه هدي أنا ثلاثة عنتي إذا كنت جرتوا هذا داودياش يكسروا في العيدين هدان هم كان كأخريو وحوكوا بالله ويا ويل كاني عبد الرحمن شيخ عبدي وحولي هاي وحن كل تلين لها إنه صلاة الليل تكذو مركا ودعي سدان الرب جيس وبريو إنه إلهي كسروا قبل داسي مسكح ديس جعل كوقب وحياوا وكحصوصنا ينا ويسكسروا عبد الرحمن وما أد بدو ما صنت أيام كلنا هاي waxay yarkaasi oo taladaas u soo jeedin doonto dabcan uu qaadan doona waa maadsan yahay Cabdiraxmaan hadaan soo qabto falcelinta dhankayga ruwayda cadeey waxay tiri assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aniga hadii aan isku dayo abaaye waxaan kula talin lahaa midka ku jecel raac sababtoo ah qofka ku jecel uu ku daryeela laakiin midka aad jeceshahay adiga ayaa daryeelaya waxaan rajaynaa adiga iyo cunugaagaba in uu ku daryeelo وما سنتي رويدة وحن رجينا إني مقدس كوقن عدون تطلع هذا. talada ugu dambeysay gacantayda ku jirto waxay noo soo dirtay gabar Soomaaliyeed oo magaceeda ku soo koobtay Xilwalaaf waxay tiri kaaga hore aad abaayo ha isdibin midka koowaad ee aad isjecleedeen aad kan dambe ee cunugu u dhashay iska iloow xumaantu shalay ku xumeeyeen buu wili ku qabaa midka ku jecel aad abaayo ay ku soo koobtay Xilwalaaf aad baan ugu mahadcelinayaa Xilwalaaf way mahadsan tahay xilwa waxaan rajaynayaa inay ku qanci doonto Maqdis taladeeda Sucaad Xuseen subhanallah itiri aniga gabadha waxaan kula talin lahaa inay labadoodaba midna aysan aadin waayo kii horena uma roona midka dambana waxa ku filan hadal yar oo kaftan oo ku yiraahdo waa adigii shalay in adeerka iga raacay iyo hadallo kale marka waxaan kula talin lahaa cunugeeda yarna inay korsato ilmaheeda dambana aaya fiican iyo aaba fiican ay u raadiso waad mahadsan tahay Sucaad Xuseen waxaan rajaynayaa Maqdis inay ku qanci doonto talada u soo jeedisay haddii aan ku sii socdo Sakiina waxay tiri midka ku jecel raac midka ku silciyay iska dhaaf qabiilaysta awalba ayuu ahaa
marka waxaan kula rajaynayaa inaad u laabato wiilkii dambe oo ilaahay uu kaaga dhigo say wanaagsan aamiin aamiin ayay tiri insha allah aamiin ayaan leenahay annagana sakiina way mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inay ku qanci doonto maqdis ee talada ay u soo jeedisay aad u mahadsantahay nistaaxoy haddaan intaas ugu gudubna talooyinka oo soo jeediyeen daawadayaasha ku xiran barnaamijkan iminka gacantayda waxaa ku jirto wiil Soomaaliyeed oo naga soo dhiibtay qiso jacayl ah kaasoo doonaya in lala taliyo u baahan daawadayaasha inay la taliyaan haddii aan ku bilaabo magaciisa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacayga waa Nuur Maxamed magacaygu waa Nuur Axmed Nuur oo ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda bahdi qarrijiqod waan idin salaamay gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka talaadiyo talawadaag aligo iyo nistaaxa Maxamed Doore salaan lamid ah hawada ku soo marayna walaal salaantaasi kadib gabar ayaan xiriir lahaynay waliba mid qoto dheer kadib asxaab oo saaxiiban ahayn ayaa gabartii waxay igu waaninayeen mar waliba gabadhan kuma qalantee faraha ka qaad waqti dheer kadib habeen ani iyo asxaabtaydii anagoo gabadha gurigeedii ag marayna ayay si kadis ay idhaheen kaalay islaantan caawa macsalaamay gabartii ayaan u tagay wax yar markaan la joogo ayaan dhahay abbaayo xiriirkeena caawa ayaa igu dambaysay ee macsalaamo hadal kale kama sugunee waan iskaga soo baxay muddo hal isbuuc kadib ah aniga ayaa culays soo saaray xaggayda gabartii baan arageeda u hiloobay iyo xiriirkeedii waan wacay waxaan ku dhahay waan ka qaldamay ee iga raali noqo saa iyadana halkii ayay istaagtay oo ay igu xumaysay asxaab iyo wax waliba markay ka quusteen waxaan go'aansaday inaan wadanka ka baxo waxaan imaaday magaalada Nairobi hal bil kadib waan ka sii baxay anigoo Zambia maraya ayaa la ii qabtay 4 bilood oo xariga ayaan galay waana la ii soo celiyay hadda waxaan joogaa magaalada Kampala oo halka ay gabarta ku nooleed gabadhana wili halkii ayay taagan tahay go'aan ah inaan ka samro waan ismarsiin waayay marka tala ayaan u baahanahay daawadayaasha ku xiran barnaamijkan tala ayaan ugu baahanahay wiilkaasi tala ayuu u baahan yahay daawadayaal haddii aad tala ama tusaale wixii cod ama fariin waxaad ugu soo diri kartaan ciwaanada shaashada kaga muuqda ama fiidiyowga commentiga hoostiisa waa mahadsan tahay anigana qisada dhankayga ah qisadan waxaa nala soo wadaagay wiil lagu magacaabo Hanad oo ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda wiilkan waxa uu leeyahay gabar ayaan isjeclayn muddo ku dhow 5 sano gabadhan waxa aan isla soconay 2014 ilaa iyo hadda waxaan isfahanay ani iyo ayada oo qofba qofka kala dabeecadihiisa uu fahmay markaan jacaylkeena soo bandhigi rabno ayaa waxa dhacday in ay waalidka ii soo bandhigeen gabar kale oo ay ayaga ila rabeen laakiin aniga qalbigayga waxa degay gabadha aan jeclahay oo kaliya markaan u sheegay waalidkay in aan gabar kale jeclahay waalidkii dhag jalaq iima siin ee waxay idhaheen waa in aad guursato gabadha aan ku doornay oo kaliya duco iyo habaar mid qaado iyo hadallo kale marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay tala isiiyaan gabadha aan jeclahay miyaan guursadaa mase midka ay waalidka ii dooneen ila taliya aan rajaynayaa inay dadweynuhu u soo falcelin doonaan Hanad oo kala doortay waalidkiis iyo gabadhaas uu jecel yahay sidoo kale nistaaxoy waxaan rajaynaynaa in talooyinka iyo wixii tala ama wacyigelin ay u soo jeedinayaan daawadayaasha ku xiran barnaamijkan ay nooga soo diri karaan ciwaanada shaashada ugu muuqda ama commentiga video hoostiisa waa mahadsantihiin daawadayaal waxaa intaas noogu eg barnaamijkeeni talaade iyo talawadaag oo aad si toos ah uga daawanayseen channelka Qariijiqood waxaan ina socodsiinayay annagoo kala ah Nastaaxa Doore iyo Faysal Bishaar Aligo intaan midkaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo gargaada oo jacaylo angambeeydayo garbaduub hay xirin iga siib gantaalaha
ugu aye naftu gacal ka mooda igu haadinayse dibkaan qabo bargaarsi amataan ugu aye naftu gacal ka mooda amataan ugu